haweeneydii ninka wasiirka ahaa uu qabay marka ay aragtay in dumarka ay ku sheekaysanayaan falkii ay kula kacday Yuusuf calayhi salaam, waxa ay dareemtay xishood. Gabadhii ninka wasiirka ahaa uu qabay ayaa wiilkii yaraa ee guriga u joogay waxa ay ku samaysay ficil. Hadalkani waxa uu la noqday arrin ay ka yaxyaxdo. Markaas ayaa waxa ay go'aan ku gaartay si ay uga aarsato dumarka, waxna u tustay in martiqaad aad u weyn ay u samayso. Waxaa isugu yimid dumar aad u badan, waxayna hor dhigtay dumarkii cunooyin, sidoo kalena mindi ayay haweeney walba siisay. Kolkaas ayaa Yuusuf calayhi salaam intay u timid ayaa waxa ay ku dhahday, halkaa dumarka ay fadhiyaan soo dhexmar ha ku arkeen. Dumarkii marka ay arkeen quruxda iyo soo jiidashada Yuusuf calayhi salaam, inta ay la yaabeen ayaa waxa ay ku dhaheen, maa haadaa bashara in haadaa ilaa malakun kariim, iyaga oo gacanta mindida isaga jaray. Nebi Yuusuf calayhi salaam waxa uu ahaa qof aad u qurux badan ee dunida soo mara. Habeenkii Israa wal Micraaj, nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, waxa uu samada ku soo arkay Yuusuf calayhi salaam, waxa uuna dhahay caalamka inta quruxa ee jirto waa kala banka quruxda Yuusuf calayhi salaam. Sidaasi darteeda dumarkii marka ay gacmaha iska jarjareen, Nebi Yuusufna malag ay ku tusaaleeyeen, ayaa haweeneydii wasiirka uu qabay inta ay istaagtay ayaa waxa ay ku dhahday dumarkii, tani waa wixii aad igu eedeyseen. Yuusufna aniga ayaa naftiisa doonay, balse wuu iga dhoorsaday. Aniga kaliya naftiisa ayaan doonay, adinkuse gacmaha ayaad iska jarteen. Wixii maanta ka dambeeyay Yuusuf haddii hadalkayga uu diido, aniga oo boqorada wasiirka ah waxaan gelin doonaa xabsi, halkaasi ayuuna ku duulaysnaan doonaa. Yuusuf calayhi salaam dhacdooyinkan iyo dumarka gacmaha iska jarjara waxa ay la noqotay arrin shoog iyo wax cajiib oo shoog ah oo fahamkeedu uu adag yahay. Boqorka gabadhii uu qabay Yuusuf calayhi salaam weli kama aysan rajo dhigin, waxay xitaa ugu hanjabtay Yuusuf calayhi salaam hadda kadib hadalkeeda haddii ay farto isagana uu diido in Yuusuf xabsi ay gelin doonto. Xaaladani ciriiriga ah iyo dumarkana tirada badan waxa uu shartooda Yuusuf uu ka magan galay Alle, isaga oo leh, Rabbiyow xabsiga ayaa iga qayr badan inta aan ku dhici lahaa xumaanta ay igu wacayaan, Rabbiyow iga badbaadi. Ninkii wasiirka ahaa iyo naagtiisa waxay ka wada hadleen sida arrinta Yuusuf iyo ceebta bannaanka ku faaftay ee qof walba uu maqlay habkii lagu qarin lahaa. Waxa ay ku fakireen in Yuusuf calayhi salaam guud ahaan dembiga in isaga dusha laga saaro, si boqorka xaaskiisa dembiga looga fogeeyo. Kolka ay u caddaatay in ceeb ay dhex taagan yihiin, Yuusufna waxba dembi ah uusan gelin, ayay Yuusuf si gardaro ah waxay u taxaabeen xabsi. Si magaalada iyo dadka wax magaratada ahba looga dhaadhiciyay Yuusuf gabadhii wasiirka ahaa uu qabay, ayuu damcay in xumaan uu ku sameeyo. Qaladkaasi uu sameeyay darteedana xabsi ayaa la geliyay, ayay bannaankii ku faafiyeen. Sidaas ayaana Yuusuf calayhi salaam waxa uu ku galay xabsi. Waxaase durba xabsiga Yuusuf calayhi salaam la soo galay laba nin kale oo boqorka aad ugu dhowaa oo kiisas lagu haystay. Labada ninna maadaama boqorka ay u ahaayeen dad u khidmeynaya, Yuusufna guriga wasiirka maadaama uu degnaa aad ay isku yaqaaneen. Sidaasi darteeda Nebi Yuusuf waxay u sheegeen riyo ay ku riyoodeen. Midkood waxa uu dhahay, waxaan xalay ku riyooday aniga oo khamro miiraya. Midka kale waxa uu dhahay, aniga oo madaxayga cunto ay saaran tahay, cuntadaasina shimbiro ay cunayaan ayaa riyo ku arkay. Ee Yuusufow, ma inoo micnayn kartaa riyooyinkani? Yuusuf dadkani maadaama uu yaqaanay xabsiga dhexdiisa waxa uu ku helay fursad qaali ah oo keli uu ku yahay, si kalsooni uu u siiyana waxa uu ku dhahay, waxaan xitaa idin sheegi karaa cuntada beri ama galabta aad cuni doontaan nooca ay noqon doonto inta aydan la idin keenin. Waxba ha ka walwalina inaad su'aal i weydiisaan, waayo tani waa wax uu Alle i baray. Waxaan ka soo tagay qoom Ilaahay iyo aakhiro midna aanan rumaysnayn. Anigu waxaan raacsanahay diinta aabbayaashayda Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub. Ee adinkuna saaxiibadaydow, ilaahyo kala duwan oo asnaam ah inaad caabudaan miyaa caqligal ah, ama hal ilaah oo keliya inaad caabudaan? Xitaa sanamka aad ilaaha ku sheegaysaan magaca uu leeyahay bilowgiiba waa waxaad adinku alifteen. Sidee ilaah uu ku noqdaa waxaad adinku gacantiina aad ku alifteen? Waxa uuna sidani Nebi Yuusuf calayhi salaam uu ku soo gaarsiiyey dacwada diinta. Waxa uuna markaasi u gudagalay inuu u fasiro riyada ay arkeen. Waxa uuna ku dhahay, midka riyada ku arkay madaxiisa oo cunto dul saaran, kadibna shimbiraha ay cunayeen, adigu waa lagu dili doonaa, weliba meydkaada inta dhulka lagu jiido ayaa shimbiro ay ku cuni doonaan.
inta uu naxay ayaa ninkaa la sheegaa inuu dhahay riyadu sidaa ma ahayn iyo waxyaabo kale, balse yuusuf calayhi salaam waxa uu ku dhahay arrintaadu xukunkeedu waa sidani. midkii kale ee ku riyooday isaga oo qamro miirayana waxaa lagu yidhi adiga muddo kadib xabsiga waa lagaa saari doonaa, shaqadaadii u adeegidda boqorka ayaana dib ugu noqon doontaa. waxaanse kaa codsanayaa haddii aad u tagto boqorka inaad igu sheegto in si gardarah aan halkani ugu xiranahay, sidii ayayna u dhacday. midkoodii waa la dilay, midkii kalena xabsigii waa laga saaray, shaqadiisa ayuuna dib ugu laabtay. balse ballantii ay yuusuf kala galeen in boqorku uu u sheegi doono shaydaan baa halmaamsiiyey, sidaasina sanado badan yuusuf calayhi salaam xabsiga ayuu ku nagaaday. dhowr sano kadib boqorkii ayaa waxa uu riyo ku arkay 7 lo ah oo hilib leh oo cunaya 7 kale oo caata ah. waxaa kale uu boqorku u arkay 7 sabuul oo cagaar ah iyo 7 sabuul kale oo baaba ah. kolkaas ayaa boqorka wuxuu isugu yeeray dadkiisa u dhowaa, waxa uuna ku yidhi ii fasira riyadani. markii ay dhegaysteen dadkii ayaa waxa ay ku dhaheen boqorow, riyada aad ku riyootay waa nooc adqaathul axlaam loo yaqaano ee qorow ah, wax micno ahna ma lahan, innaguna riyo qorow ah ma fasiri karno. marka ay sheekadu halkaa maraysay, ninkii dhowrka sane ee xabsiga kula soo xirnaa yuusuf calayhi salaam ee riyada uu ku badbaaday buu u soo fasiray ayaa soo xusuustay ballantii yuusuf. kolkaas ayaa boqorku waxa uu ka dalbaday fasax si riyadani fasirkeedu u keeno, waxaana la siiyey fasax si degdeg ah. isagoo ordaya waxa uu u soo galay yuusuf. yaa ayuha sidiiqu iftina fii 7 baqaraatin simaanin ya'kuluhunna 7 cijaafun wa 7 sumbulaatin qudr wa uqrun yaabisaat. yuusuf calayhi salaam kuma uusan dhihin ninkani aaway ballantii iyo fariintii aan kuu dhiibay, maxaad iigu soo noqon weysay? dhowrkii sana halkani ayaan keligay ku xirnaa iyo waxyaabo la mid ah. waxa uu ku dhahay yuusuf calayhi salaam riyadani fasirkeedu waa mustaqbalka 10 sano ee soo socota. waxa uu weliba yuusuf calayhi salaam fasirka riyada uu u raacsiiyey tale iyo waano. waxa uuna ku dhahay 7 sano ee soo socota aad baad u barwaaqaysan doontaan, balse 7 kale ee soo socota waxaa jiri doona dhib iyo abaarooyin. sidaasi darteeda sanadyadani barwaaqada sabuulka oo dhan hawada cunina, waxna meel ku keedsada si abaaraha aad u cuntaan. 14 sano kadib waxaa imaan doona sanad wada roob ah, waxaana cabi doontaan khamrada. ninkii fasirkani ayuu u geeyey boqorkii, aad ayuuna u farxay boqorka. waxa uuna ku dhahay war ninkaasi u tag kuna dheh boqorka ayaa kuu yeeraya ee xabsiga ka soo bax. yuusuf calayhi salaam waa uu diiday, waxa uuna ku dhahay boqorka ku laabo soona weydii arrintii naagaha gacmaha iska jarjaray ujeedadooda iyo waxa iga damacsanaayeen. waxaana la isugu yeeray mar kale dhowr sano kadib dumarkii, waxaana lagu dhahay maxaad yuusuf ka damacsaneedeen kolka aad gacmaha iska jarjarteen? waxa ay ku dhaheen xaashaa lilaah maa calimnaa calayhi min suu. markaas ayaa waxaa istaagay haweeneydii ninkii wasiirka ahaa uu qabay. kolkaas ayaa waxa ay dhahday hadda ayuu xaqa caddaaday, sida dhabta ahna aniga ayaa yuusuf naftiisa doonay, isagana run ayuu sheegay. nafteyga kama bariyeeli karo xumaan, waayo xumaanta waa mid nafta ku laran, inta uu ilaahay u naxariistay mooye. culimada waxay isku khilaafeen hadalkani u dambeeyey ma yuusuf ayaa dhahay ama gabadha ayaa dhahday. waa mowduuc dood uu ka taagan yahay, balse waxaa xoog badan in gabadha hadalkeedu uu ahaa wamaa ubari'u nafsii ina nafsa la amaaratun bisuu. nebi yuusuf calayhi salaam xabsiga sidaa ayuu kaga soo baxay boqorkii. markii uu la hadlay boqorkii waxa uu ku dhahay waxa aan kaa dhiganayaa yuusufow mid ii dhow, maanta wixii ka dambeeyana waxaa agteena ka tahay qof lagu kalsoonaan karo oo aamin ah. halkanise ha inoo joogto qisada yuusuf calayhi salaam, waa inoo qaybta 3 iyo habeen dambe.